dalxiiska qalinjibiyaasha waa barnaamij lagu daafuray horjoogayaasha ama kaabagalasyada fasalada sanadkan ka qalinjibinaysa jaamacadda muqdisho oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka qalinjibiyaasha jaamacadda. ardayda ayaa booqasho ku tegay xarunta dhexe ee jaamacadda oo ku taala degmada Yaaqshiid, waxaana ku wehelinayay socdaalkooda macalimiin iyo maamulka qalinjibiyaasha jaamacadda. ujeedada barnaamijkan waxaa inooga waramay agaasimaha maamulka qalinjibiyaasha jaamacadda muqdisho Maxamed Faarax Raage. maanta programka aan lahayn wuxuu ku saabsanaa program aan ugu talagalnay in ardaydu ay dalxiis u yimaadaan kambaska weyn ee jaamacadda ay leedahay Yaaqshiid ku yaala iyo talo in la wadaagayo. inta badan waxa ogsoonahay ardayda marka jaamacadda ka qalin jibinayaan aqoon badan iyo maxaa la yiraahdaa tababar fiican way soo qaateen, laakiin waxa kaliya aad ugu baahan waxa waaye inay helaan talo inay helaan. marka maanta waxay qaadanayeen talo iyo tusaale oo ardayda inta maxaa la yiraahdaa ka dhiman waxaan rajaynaynaa insha Allah in programkan ay ka wada faa'iideystaan. marka waa program aan ugu talagalnay maanta kaabagalasyada inay ka faa'iideystaan. programkan marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in ardayda sanadkan kulliyadda ka qalin jibinaysa oo dhan inay ka faa'iideystaan. marka waxaan sameyn doonaa isbuuca soo socda ama isbuucyada nagu soo aadan waxaan fursad siin doonaa ardayda kale aan maanta inay yimaadaan aan fursad u helin. Ustaad Diiriye oo kamid ah barayaasha jaamacadda muqdisho ayaa ardayda sanadkan ka qalin jibinaysa dardaaran u jeediyay. qul way qabowdaa, qul xanuunkeedu wuu qaboobaa, laakiin erey xun ma qaboobo. erey xun hadduu afkaa ka soo baxo ma qaboobo. ereygaas marka ereyga aad ku hadlaysid ilaa aad uga fiirsatid oo aad kontrooshid, qof naxariis leh inaad noqotid mar kastaba. waxa kale oo muhiim ah iyadana cafiska qaado wax kasto lagu geysto. sheekh maalin wacdigan ka dhageysanaya ilaahay dambigiisa dhaafay waxa kamid ah laba waxyaalood ilow samafal aad samaysid iyo wanaag aad samaysidna ha xusuusanin. waxa dhici karta dad xusuusatid inaad ku manna sheegatid. labana ha ilaawino ilaahay xusuustiisa mar kasta ha ilaawi, aakhira iyo xaaladeedana ha ilaawi. si lamid ah Ustaad Cabdullaahi Baydhabo ayaa dhankiisa siinaya talooyin ay ku sii horumarin karaan noloshooda. horta jaamacadii way dhamaatay bas cilmi halkaas uu iga horta jooji kow. horta cilmina kororso wixii aad skillsa oo aad kororsan karto horta meesha ka sii wad oo macnaha halka ha ku ekaynin. anaad waxaan idin sheegay baaj yaani markaan soo dhameeyay ilaa hadda marka waxaan ku fikirayaa inaan wax kale ku sii daro mar walbana waan isku dayaa inaan wax ku diri karo yaani. marka horta ma dhamaanayo cilmi, horta adigu baa dhamaan moogi horta hal ogaada adigu baa dhamaanaysa moogi horta cilmi ma dhamaanayo. marka adiga iska wada horta intaad ka dhimanayso taas waa mid oo ustaadkana waa ku inugu baraarujiyay. waxa kale oo diyeeshin maadaama jaamacada dhameyseen cilmigana sii korsada waxa kale oo diyeeshin ka faa'iideysta calaaqada aad la leedihiin dadka. calaaqadu waa muhiim, raasmaalka ugu muhiimsan. marka calaaqadaasi maxay tahay? calaaqadaasi waxay tahay tan qaraabada ha noqoto, tan saaxiibtinimada ha noqoto, ay calaaqa oo aad leedahay raasmaal ka fiican ma jiro calaaqada. ardayda ayaa bogaadiyay soo dhaweynta ay maamulka qalinjibiyaasha u sameeyeen. magacayga waa Axmed Maxamed Warsame kamid ah ardayda jaamacadda muqdisho faculty-ga Arts and Humanities. maanta waxaan joognaa kambaska weyn ee jaamacadda muqdisho joognaa. aad iyo aad baa ugu faraxsanahay maanta inaan kaabagalaashada dhamaantood iyo hawlwadeenaha xafiiska alumayga inaan meeshan ku wada qaadano waqti oo training aad iyo aad u qiimo badan aan meeshan ku qaadano iyo jawi aad iyo aad u macaan iyo dalxiis xaaladiisa aan la soo koobi karno aad iyo aad u wanaagsan. maanta meeshan yani qaybo badan bay isku dhex jirtay, qayb isbarasho iyo qayb kale oo yani training oo aad iyo aad u qiimo badan, qayb dalxiis oo jaamacadda yani qaybaheeda lagu wareegayay. marka aad iyo aad baa ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo meeshan aan isku barano dhammaan ardayda kala duwan ama kaabagalasyada kala duwan ee kulliyadaha kala duwan. magacaygu waa Safiya Maxamed Nuur, dhigatay ama ka qalin jabisay kulliyadda Health Science departmentiga ama faculty-ga wuxuu ahaa midwifery ama umuliso sida dadku yaqaanaan. maanta waxaa meeshan iskugu imaanay dalxiis iyo tala wadaag iyo tala jeedin iyo maxaa la dhahaayay inaan jawiga bedelano meeshan quruxda badan leh jaamacadda kambaskeeda weyn jaamacadda muqdisho. waxaana casuumay alumnayga jaamacadda muqdisho way ku mahadsan yihiin alumnayga. magacaygu waa Xuseen Cali Maxamuud, ardayda jaamacadda
xusni ay taqaanaa educationka ayaan ka baxay qaybteeda math and physics ayaan ka baxay barnaamijkan maanta ay noo qabteen MU alumni wuxuu isugu jiraa barnaamij dalxiisa aan ku soo fiirinayna jaamacadeeni iyo aan kusoo dalxiis tagayna jaamacadda kamaskeeda weyn waa barnaamijkii ugu horeeyay ee noociisa ah ee uu soo agaasimo maamulka qalinjibiyaasha jaamacadda muqdisho taasoo ay nasiib u yeesheen in lagu daafuro horjoogayaasha fasalada sanadkan ka qalin bedelanaysa jaamacadda muqdisho